waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xaguud degan yahay ilaaliye iyo xogo kale oo ku saabsan maalimihiisa koowaad xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaanu eegi doonaa iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan Joe Biden oo saxiixay go'aan xasaasi ah oo ku saabsan Soomaaliya qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka dalka TV Media fadlan daawada haddana nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararkaanu ku baahina janalkan aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim daawadayaal haatana kusoo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey ka bilaabay shaqada waxa uu u dabaaldegay guushiisa labaad ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxa jira arrimo badan oo uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono intii uu ololaha ku jiray waxayna u muuqataa inuusan waxyaabaha qaar la sugaynin inta uu xilka si rasmi ah u la wareegayo kulamo kala duwan ayuu durbaba bilaabay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu saacadii ugu dambeeyay kulamo la qaatay taliyayaasha ciidamada gudoomiyaha bangiga dhexe ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabka iyo danjirayaasha Mareykanka iyo Turkiga ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya madaxweynaha dooranaya Soomaaliya ayaa hooyga uu ka degan yahay Muqdisho ku qaabilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada kulankan oo ahaa mid hambalyo iyo salaana ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u rajeeyay inuu eebo ku guuleeyo xilka qaran ee loo doortay dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo taliyaha ciidanka militariga General Odawa Yusuf Raage ayuu kala hadlay adkeynta amniga ee xiligan kala guurka iyo inaysan al-shabaab ka faa'iideysan isbedelka hoggaanka dalka kulan kuwaas lamid ah ayuuna la yeeshay sidoo kale kusimaha taliyaha nisa ee qaranka Yaasiin Cabdullaahi Fare madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale la kulmay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo uu kala hadlay sida looga gudbi karo caqabada dhaqaale ee ka dhalatay kala guurka dheeraaday oo waxay isla gorfeeyeen waxa laga yeeli karo cusboonaysiinta miisaaniyadda 3 sanadlaha ah ee IMF oo ay ku taageerto Soomaaliya taas oo ku eg maanta oo 17 bisha May iyo arinta deen cafinta Soomaaliya mas'uuliyiinta kale ee uu madaxweynaha cusub la kulmay waxaa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo ay ka wada hadleen dhameystirka dhismaha hay'adaha dawladda iyo dadajinta howlaha xiligan kala guurka madaxweynuhu wuxuu hoteelka uu shaqada ku sii wado kula kulmay danjirahan ayaana kamid ahaa dalalka siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaalida ku cadaadinayay in la dedejiyo doorashada safaaradu waxa ay barteeda Twitter ka soo dhigtay hambaliyada danjiraha oo far Soomaali ah laakiin faahfaahin ku saabsan kulankan lama soo qorin haddaba daawade xaguu degan yahay madaxweynaha cusub madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa howsha ku sii wada hotel Shabeel oo ku yaala Muqdisho kaas oo u dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho halkaas ayuu horeba uga sii sameysanayay ololihiisa doorashada madaxweynaha lama oga in qoyskiisa ay halkaasi u soo wada guureen iyo in kale waxayna u muuqataa inuu halkaasi joogi doono intuu si rasmi ah ugu wareegayo madaxtooyada Soomaaliya yaa ilaaliya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaaba habeenkii la doortay amnigiisa la wareegay ciidanka koofiya casta ee ilaalada madaxtooyada horey waxaa amnigiisa u sugayay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya cutubka madaxda ilaalisa ee howlgalka ADMIS ee midowga Afrika ayaa sidoo kale ku soo biiray ilaaladiisa gaarka ah goorme ayuu u guurayaa haddaba madaxtooyada Soomaaliya Xasan Sheekh sharciga Soomaaliya wuxuu dhigayaa in madaxweynaha la dhaariyo isla markaa la doorto balse muddada caleemasaarka waxay ku xirantahay go'aanka madaxweynaha markaas talada wareejinaya isaga ayaa go'aanka gaara laguna sharfaa haddii aan taariikhda dib ugu noqono Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu 2012 xilka ku wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud 2 toddobaad kadib markii uu doorashada uga guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud toddobaad kadib markii doorashada looga adkaaday ayuu xilka ku wareejiyay madaxweynihii beddelay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalalka kale ee caalamka waxay leeyihiin shuruuc iyo xeerar u degsan oo ay ugu talagaleen kala guurka iyo xil kala wareegsiga laga yaabee inay Soomaaliya qorshaha ku darsato arintaas marka la diyaarinayo doorasho qof iyo cod
waa hagaag daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa Joe Biden waxa uu saxiixay go'aan xasaasi ah oo ku saabsan Soomaaliya. Madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden ayaa saxiixay amar u ogolaanaya militariga in ay mar kale boqolaal ka mid ah ciidamada howlgallada gaarka ah afuuliya la geeyo Soomaaliya. Amarkan ayaa ah mid meesha ka saaraya go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump oo lahaa go'aankii Soomaaliya looga soo saaray 700 oo askari. Go'aankaas ayaana dabarjab ku noqday howlgallada argagixisa la dirirka ee hormuudka ay u ahaayeen ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya. Madaxweyne Joe Biden ayaana ogolaaday codsi ka yimid Vatican-ka oo ku saabsan in la beegsado ku dhawaad 12 qof oo ka tirsan hogaamiyaasha kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh kooxda argagixisada ee Al-Qaeda sida ay xaqiijiyeen Aver Zergal oo ka tirsan militariga Mareykanka. Tan iyo markii Mr. Biden uu la wareegay xafiiska, duqeymaha cirka ayaa inta badan ku koobnaa kuwa loogu talagalay in lagu difaaco ciidamada saaxiibada ah ee wajahaya khatarta degdega ah. Mr. Biden ayaana saxiixay soo jeedinta xogayaha difaaca sida ay saraakiishu sheegeen. Bayaan ay soo saartay afhayeenka golaha amniga qaranka ayaa lagu cadeeyay tallaabadaasi iyadoona sheegtay inay suurtagali doonto dagaal wax ku ool ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Isku soo wada duuba go'aamada uu soo saaray madaxweyne Biden ee saraakiishu ay ku sifeeyeen shuruudo aan la magacaabin ayaa dib u soo nooleyn doona howlgalka furan oo Mareykanka hormuudku u yahay, kaas oo lagu bartilmaameysan doono kooxda argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalanta. Tallaabadan ayaana ka duwan go'aankii uu sanadkii hore ciidamada Mareykanka uga saaray Afghanistan iyadoo la joogo waqtigii la soo afjari lahaa dagaalka lagula jiro argagixisada. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii waad kala socoteen janalka dalka TV Media. fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada aan ku baahino janalkeena. aragtidiina halka uusan noogu reeba, muuqaalkana sii sheer gareeya si uu gaaro asxaab badan. laagtiinana waa inoo dhiiragelin, waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka janalka dalka TV Media.